inaba caadi maaha. Sheeko waalna socoto. Dabaqaas ayaa wuxuu ka dhacay fireka hadduu imaaday. Aa ujeedeen dabaqaas waaye. Fire hadduu imaado aa ujeedeen. ilaahay dadka badbaadi. Fire ka. Dadka dhan banaanka u soo baxeen. Sheeko waalna socoto. dadka dhan waa kuwa banaanka ay joogaan. Dabaq kale ku dhawo dabaqaas waaye. Annaga kuwa parkingkeena kuwaas waaye. Another fire imaada oo jeedin another one. That's the second fire hadda imaanaya. That's second fire right there. Fire labaad waa imaaday. Please haddii aad ka hesho janaalkan, which everything will be live inshallah, subscribe, comment and share. badanaa waxaan isku dayayaa inaan live wax walba inii soo geliyo, whatever ee ka dhacayso, whatever is happening. So please comment, share, subscribe. Ha hilmaamina inshallah subscribe-ka deeqs ku noqda. So please subscribe. oo jeedin live waay live. waa one of our building. xaafadda haddaan inaga sheekeeyo, meeshaan waa Seattle Washington. xaafad ka mid xaafadda waxaa la South Side by Vintage. There are total of 4 building, waa 4 dabaq. One of the 4 buildings waaye. hadda waxaa dabka looga baqayaa. ilaahay dabka ma dhigo, ilaahay dadka ku badbaadiyo. I wish everybody's doing okay. So but there might be some part of the building fire. We don't know which area it is exactly, and we don't see any smoke. That's good news. وحقيقة ومجنة. So that's very good news inshallah.
Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I believe there's nothing, there's no fire. They just confirmed. Hadday ii sheegeen fire ma jiro, waa laga baqay xaafadda wax yar waxaa waaye jika ka mid ah laga baqay, laakiin alxamdulillah everybody's okay. Qof walba waa fiican yihiin. dadka daawanaya aad u mahadsantihiin. bilaasaanig ha hilmaamin subscribe, comment and share. Okay, do not forget to subscribe, share, comment. Janaalkan janaal cusub waa hadda YouTube kusoo biiray insha Allah, laakiin wuxuu ku fiican yahay janaalkan janaalada kale ugu doon yihiin. wax alla wuxuu soo gelinaya waa live, wax markaa socdo waa qisooyinka, especially more wuxuu kasoo gelinaya dalka Mareykanka insha Allah. hadda waa kala dhawaaq waa istaaga oo jeediin, gaar ahaan Seattle Washington live ku noqonayna ilaa adduun gaarsiiyo. waan salaamayaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.